السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome again with another video. Video again maanta insha Allah videoyada kale way noogu duunaan doonaa. Video awal waxaa idin duubi jiray aniga igu saabsan, laakiin maanta insha Allah waxaa duubi doonaa video ku saabsan bakeelahayga ama rapidkayga ahaan. bakeelayaan dhihin magacuu leeyahay ahaan video ku saabsan ayaa duubi doonaa. ahaan dadka yaqaana waa bakeelahayga asoo yar aan TikTok soo gelin jiray, like TikTok caan uu ka yahay dad badan aan aqaano. marka maanta waxaa jeclaystay video yar oo ahaan ku saabsan inaan duubo. shalay maanta xoogaha uu iska xajisan yahay, ma badboodayo ma ordooyo waa aragtaan. marka waxaa isdhahay babygaaga waqti la qaado because shalay maanta buu iska xajisnaa. marka maanta waxaa jeclaystay video yar ahaan wuxuu maalintii sameeyay inaan duubo. wax badan waxaa duubay Xafsa waxay sameyso, laakiin maanta waxaa duubi doonaa ahaan wuxuu sameeyo. isdhihina maxaa magac ugu bixisay because waa jecel aad u jecelahay. ahaan waxaa soo qatay like 4 months ago. hadda wuxuu jiraa 4 bilood. saa aragtaanba wuu weynaaday maasha Allah, dhaqso weynaaday. 4 bilood hadda ahaan isla noolnay. ahaan waqtiga soo qaadanayay 3 week uu jiray. marka birthday-diisa bishii 5aad ayaa waxaa u dhiman 1 bil. cunta u keenay uu iska xanuunsan yahay miskiinka, Ilaahay ay caafiye. maanta waa aragtaan ma badboodo, cunto xitaa lama rabo. awalkii hore irida markaa saas ugu soo galo waa liisoo ordi jiray, korkaa laga kori jiray. maanta laakiin ma aqaan gurigiisa hoostiisa ma kasoo baxooy. inta hoos tagna banaanka tagna ciyaari jirnay. miskiinka uu iga xanuunsan yahay igu soo dacooyay. yaas shalay maanta saas uu caajisan yahay, cuntada xitaa si fiican ma cunaysa aragtaanba. xoogaha yar uu ordaya. awalkii hore zaaid ugu ciyaari jiray, wuu badboodi jiray, intuu ka dhici jiray, intuu ka bixi jiray. dhib ma laha, laakiin insha Allah wuu ii caafimaadaya. 4 bilood ahaan wada nooleen waxay ahayd 4 bilood ee nolosheeda ugu quruxda badneed because asaga wehelo ii ahaa, saaxiib ii ahaa, wax walbo asaga ii ahaa. marka maanta la joogo walaahi ahaan wuxuu iga fiican yahay. dad badan bartay oo asaga iga fiicna. waqti walba isla joogno, meel walba isla marno, meel walba ka dhacno. hay dhibo marmar qaarkood wuu xanaaqa. ma jecla maxaa la dhahaa in la caburiyo iyo waxaaseeta. ani horta zaaid uu ii jecel yahay. ahaan heer wuxuu gaaray ani habeenkii markaa seexda kadib uu seexdo, bagayga uu ku seexdo. marka ahaan maanta waxaa dhihi karaa saaxiibkayga igu dhow, wehelkayga maanta igu dhow. qofka oo mar walbo xanaaqsanaha waqti la qaato ku farxo, markaa faraxsana waqti la qaato, markaa murugeysanaha u imaado. waa asaga farxad zaaid dareema mar walbo oo asaga la joogo. waa isweydiin kartaan idinka dhan maxaa ka qaldan isdhiisan Xafsa xayawaankan saandhan maxay u amaanaysaa. laakiin wallaahi waqti walbo oo nolosheeda soo mara 4 bilood ahaan wada nooleen waxay ahayd 4 bilood oo aad u qurux badan. ahaan heer waxaa gaarnay markaa shaqada aaday xitaa marmar aanan ka tagi waay dartiis shaqada ugu joogo. sometimes shaqada asaga u wado, xijaabkayga hoostiisa geliyo, xitaa wax yar oo dhaqaaq uusan sameynin. maxaa la dhahaa dukaanka sidaa ku aadno haddii ay noqoto, haddii xitaa suuqa aadayo. marka waxaa dhihi karaa aniga maanta la joogo ahaan waa xayawaan ma dhihi karo, qofna ma dhihi karo. maxaa dhaha maanta la joogo ahaan cid iga dhow ma jirtaa u maleynayaa. xanuunkiisana aniga aad ayuu ii dhawaa maanta iyo shalay. hadda ka hor soo xanuunsan maarkin ama xanuun hayo, laakiin maanta iyo shalayba saa aragtaan cunto dhan ma cunooyo. waxaa isleeyahay marka maadaama uu cunugaaga yariiska ka xanuunsan yahay, fiir indhihiisa ma badboodayo xitaa. I'm sorry mama, raali noqo hooy macaan.
ma badbooday xitaa awal uu ordi jiray, uu imaan jiray, fadhiguu aadi jiray, intuu ka bixi jiray. maanta laakiin waxaas ma jirto. maanta qolka xitaa lagama soo bixiyay. mararkii kale ana iska jiifa uu soo baxayaa. guriga nalalkiisa dhiigay ku shaqeeyaan. markuu meesha soo maro nalalka daarmaayo. ana waxaa dareemi jiray markuu nalalka daarmaba ahaan intuu meesha soo maray. subaxii markaa kasoo kaco uu soo boodi jiray, korku igu soo boodi jiray, and then xoogaha waqtiga la qaadan jiray markaa dukada kadib leewa jikada geli jiray. laakiin saakay hadal iyo wax dhan maraba saa aragtaanba xanuunahayaa u maleynayaa. maanta waxaa is dhahay videoga duub dhakhtarkiisa geelinahaa. of course dhakhtaruu qabaa oo mar walba caafimaadkiisa la socda. laakiin shalay iyo maanta waxaa dareemayaa inuu xanuunsan yahay. videogan markaa dhameeyo insha allah dhakhtarka geen doonaa. haddii oo soo duuba karan waa soo duubaya. ciyaar bilaa xoogaa yar waa ciyaaraya. maskiinka ilaaha caafimaad taam ha ii siiye. saa aragtaanba xoogaa yar inuu badboodo isku dayoya. kaamiradan iyo waxaan nagu ka cararooyaa. marna may dhicin ahaan inuu saan u dhadhaco ama iska jiifo. fiiri bagi inuu iskaga jiifo ee uu iska rabaa. socod dhan iyo meel aaditaan dhan bakama hayso. wallaahi waa yaabanahe. saan caafimaad kuma qaba. ahaanoo geedkiisa hoosta ku laabanaya. maya wallaahi ilaaha kuwa caafiya maamaa. cuntada xitaa maanta muxuu awalkii hore markii asaas u tuuro koruu u boodi jiray. okay, let's see inuu caafimaad qabo. meeshaana saaray sugbal aan fiirin inuu kasoo degaayo. ahaan mama kaalay soo deg. ahaanoo intaan kasoo boodi la'aa caafimaad ma jiro. kursiga korkiisa markaa saaro uu bow soo dhigi jiray. laakiin ahaanoo meeshaan gurigiisa korkiisa le saaran. maanta xitaa wallaahi war dhan marabo. gurigaas xitaa maba asigaba galabo. asaga anuu marabo qolka ila seexdaa. and of course midaan igiilo ahaan bamba soo xirtaa. waa ogay way isweydiineysaan oo waxaa dhahaysaan may soo waalata xabso. but maya wallaahi markuu ila seexanayo uu qolkayga seexanayo waxaa u xiraa bambas. ciyaar yaryaruu bilaawaya banaankuu aaday. hooy inta u socotaa waay. igumaba haraba soo xanuunsan xitaa maanta. xanuunkaa yeelaya u maleyna caafimaad saan kuma qabtid hooy macaan. waxaa isku dayaya xoogaha inaa ciyaarsiiyo oo muudka u saxo. maadaama aad dareemoy muudkiisa inuu zaaid u qaldan yahay. xoogaa yar oroduu bilaabo. waa liga cararooyaa waana xaggayga. fiir aday kaalay ha iga carari. now soo qabtay istaalka inaa geeya iga haysaa maanta. laakiin dhakhtarka beriyaa balansanne. beri la rabaa inaa istaalka geeyo because waxaan waa appointment. waqtigan imo waa lagu dhahayaa. maanta haddii dhakhtarka uu ogolaan lahaa waaba geen lahaa. soo marka waxaa isdhahay maanta video yar duub. maanta waa cajisan laakiin dhib ma lahan. maalin asagoo fresh oo caafimaad fuul qaban waa niisoo duubaya. aragtaan suu isaga dhib badan yahay, suu sweet u yahay, suu dadka ula dhibaa iska aragtaan. waa kaasaa orodkiisuu iska bilaabay. ani dhanba maanta waa liga cararooya maba lay rababa. fiiri kursigu rabaa inuu cuno. adduunka wax adeeg oo la qaniino ugu jecelyahay. geedkaas xitaa nalalka ku jiraan oo tv-ga ii suran hoosta intuu ka gala qaf leeb la siisanayaaba. wax adeegna uu jecelyahay. hadda laakiin kaaroota dhan masii. kaaroota dhan waa ka joojiyey because waxaa dareemay demo uu kaaroodka cuno demo uu maxaa la dhihi jiray uu kaadadiisa noqonaya like something like jaalo uu noqonaya. hooyo kaamirada mala yaabantahe. war dhan lama rabo aday. gurigeyga iska galaadhe. ay dhibina hana iga daba imaanina. ahaanoo maanta qolka galooya. fiicnaan badanaa. wuuba ka carari jiray markuu qeyladeeda yar subaxii markuu maqla. markaasaan usoo kaca jaqdeeda u maqla.
marka salaad usoo kaca camal habeennimadii soo toosaba bow korka laga soo karaya mama kaalay saas markii ay la kor u boodi jiray come on ciyaar mama ina u qabay xitaa waa iska rabaa waxa isdhahaya ama ku sii xanuunsada horta rapidka ani waa kursan jiray hadda ka hor mara zaaid u jeclaa 2019 dhamaadkiisa ilaa 2020 bilowgiisa laakiin maxaa la dhahaa ka wallahi zaaid u jeclaa gabadha saaxiibana waxay dhahay sawir ku soo gagala bow ka fakaday way soo qaban weysay markii ay ugu dambeysay marka waxa sameeyay ina u qabay raba galala hooyo mama aku qabeynaya haya adduunka wax la sheegay qabeys ugu nacibiye waxa u malaysaa in la dhahay biyaha suna kugu jirta so tawel u doonaya tawelkii aku qalajin lahaa because markii uu qabeeyo qabooba galay hadii aad tawel ugu qabeenin idinka waa dareemi kartaan markii aad dhaho qabeys adduunka ugu nacibiye biyaha ku fure biyaha subka xarroya hadda qabeys adduunka lagu nacibiye hadii xitaa aad dhahdo waa ku qabeena waa tirtira oo xarra ninkan so marka ina u qabeeyo raba biyaha tartiib ugu furaya Allah ma booda hada boodinta kaamirada la yiro iga jibinin waa ay maqashaa umaleena biyaha waxa waaye in biyaha waxa uu sameeyay waa u qandiciyaa maxaa jirta meel oo biyaha lagu kulay guriga Soomaha biyaasha dhan kuleel noqonaan jikada maxaa la dhahaa sinkiyaasha soo markii biyaha waxa uu dhigayaa kuleel ugu soo dhigo soo daaray tartiib la in looga qabeeyo waa geedkan waa geedka oo ahaan ugu qabeeyo fiirada ninka dhan u qabeynay anagu isoo koreeyo nin dhan oo qoyan waayaba waxa qoyan ba asaga ma ahan fiir meel uu saarayay halla ani kana maalinta dhawa u qabeyna maalin dhaafa ugu qabeeya maalinta dhawa u qabeyna asaga dhan inta u bood inta ka dhac maanta soo caajisana arkoosinba saas darteeda maxaa lahaa loo aaminsan yahay marka kale laakiin uu qabeynayo bismillah waxa isdhahay Falastiin iyo Israa'iil ma meeshan isku dagaalayso xamaantu nasiye maama marka ku qabeyna bis iska xanuunsana saana igu fadhidide fiir aad biyaha la nacibiye biyo marka lagu shubo rapidka suu bakeelaha suu u weyn yahay asidan wuxuu noqonayaa wax yariis lafiisa soo baxay markaas xamalan marka ugu nibca waay koofidaasi u ega xirtay koofid oo wadaxa rapid fiirada ninka qoyan dhan baan u ikrooya mar walba qabeynay waxa sameeya dharaa soo xirana dharkaas ay ugu qabay biyo ka wada dhigaya hadda ani dhan biyo iga dhigay ninka dhan oo qabeynay baan u isoo koray samaratan soo caato u noqday tawelkiisa waa ka saa loogu tirtiro soo marka hadana tawelkiisa ugu tirtiraya qabowga badan uma fiicno asi xitaa uu isla leefayo oo uu isqalajiya laakiin waxa ka fiican marka aan u qabeynay waxa sameeyaa tawel hore ugu soo qaada tawelka ugu tirtira kadibna waa ku daboola xogaha yar soo u kululaado because xaadiiso dhan duftiisa dhan wixii dhan wada qoyay fiirade warkeyga dhan lama rabo maanta walaa uu degan yahay suuq bal ha dhicina hooy macaan inta ordaysid fiirade rapidka weyna soo caato u noqday xaada ka buuxday intaas dhan waxa ka ilaalinaya inuu dhaco because hadii uu dhaco dhaqso dhimana rapidka teeda kale waxa ku arkay haduu bagaaga xitaa ka dhaco dhulku dhaco xayawaanka dhaqsada dhinta waay harantiirada ku dhufto horeyba ka dhimanaya soo marka ayar tartiib inuu badbooda u diidanahay saas darteeda tartiib ugu tirtirooya kursiga qadada soo fadhiistay waxa isdhaaya xogaha dabeesha ka ilaali markaasaan ugu qabay qolka badama geli tawelka u soo qaada waa qalajina markaas ka dib le maxaa la dhahaa oo u qabeyna oo banaanka geynaya soo waxa arkay hooyo isoo wacday anina ma arkeenin
ahaana ku mashquulsanaa, ahaana u qabeynaya, ahaana soo yarna tigtagayga ka helaysin hooyaday isoo wacayso. soo marka ahaan asoo yar aad tiktok ka helaysin like I think sayid u yaraa hadda 5 bilood u socdaa, 6 bilood markuu gaaro habaad dhiyalo dhiga. Ani habeenkii YouTube-ka galaa waxaa ku mashquulaa inaan dhageysto rabidku wuxuu jecel yahay, markuu xanaaqsan yahay siduu yahay, markuu faraxsan yahay. Of course rabidka xayawaanada wuxuu ku jiraa stress ka qabto naag markay tahay camal madii hal mar gaarto 4 bilood aanu weli maxaa la dhahaa nin is arkin, maxaa la dhahaa stress qabto. Stresskaasna wuxuu sababi karaa inay dhimato. beenii ma sheegay YouTube-ka gali kartaan, waa soo fiirin kartaan. soo marka asaga hadda 5 bilood ugu jira naag in loo raadiyo waay yaa saddex u noqdaa yaa rabid naag haysto ku dara ahaankeyga oo saddex u noqdaa. anay ila degaysa hal qol hadda jiraya anaa bixinaya maxaa la dhahaa ilmahooda wixii lagu korin lahaa. saddexa halii soo raadi gabar yar saddex u noqod u ah hooyo la hadlooya maanta waxay soo fiirinaysay iskoolka oo wiilasheena. soo marka waxa weydiinayaa inay wiilish soo aragtay in kala because walaalahayga boodin ay ku jiraan. soo iyadana waxay aaday abooha igu xigo oo xanuunsan. soo marka saas u wareysanaya igana raal noqdo sheekadii oo rabidka ku soo laabanay gabadhaas saddex u noqda halii raadiyo. teeda kale famil fiican aan rabaane, famil fiican rabidka ha keenaan, famil qaylo badan ma rabi. anaa masruufka ilmihiisa bixinaya wiilkayga oo maalinta arka cunigu ii dhalay rabidkayga oo farxi lahaay. soo marka maxaa la dhahaa weli waa tirtirooya si sahlan kuma qalalo cabaar hadsaan tirtirooya almost 1 hour asileysi saa u tirtiro because hadda waxaa isdhahay xoogaa yar uu qalalo balakoonka geey maalin waaye. soo marka xoogaa yar oo qoraxa banaanka jirto intaas waxaa isdhooya at least xitaa qoraxda ha ku yar dhacdo oo ha qalalo. video maantana waa cajisan karaa la noqdo videoyadiisana haddaa jeclaysateen waa nii soo badinaya, haddii kalena maya cuntadiisa fiiro hataas weli. haddana meeshan ayar gelinayaa xoogaha yar kuleel ha helo oo ha isa fiican isku qalajiyay maadaama aniga soo qalajiyay. insha Allah videoga xiga ayaa ku kulmi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. idinkana waxaan leeyahay fi amaanillah. waxaan iga tagay salaanta islaamka. insha Allah videoga hantaa ka hesheena iisoo sheega waa badin doonaa, soo badin doonaa videoga maantana hadduu alla idmo intuu noogu ekaan doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maca salaama. maalinta ha idin wacnaado intay maalin u tahay, haweenkana ha idin wacnaado intay haween u tahay. intaas ayaa idin leeyahay. bye bye. ciao.